بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد النور الشيخ محمد waxaan soo gudbinayaa insha Allah bayaankii ka soo baxay kulankii wada tashiga ahaa oo ay siyaasiyiin iyo waxgarad iyo aqoon-yahan iyo culamaa diin iyo dad badan oo ka walwalsan xaaladda Soomaaliya ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi iyo talooyin ay u soo jeedinayaan xukuumadda iyo ummadda Soomaaliyeed runtii waxaan isleenahay kulanka noocan oo kale ah waa muhiim in xaaladda dalka wada tashi laga sameeyo talooyin afkaar la isugu weydaarsado talooyin dhaxalgalan meesha laga sheego marka runtii waxaan isleeyahay axsaabta siyaasiyiinta waxgaradka maanta isugu yimid kulligood waxay qabeen dareen ah in dalka la badbaadiyo xukuumadda talooyin la siiyo ummadda Soomaaliyeed la wacyigeliyo oo loo muujiyo wada hadalka iyo wada tashiga iyo afkaarta kala duwan inay muhiim u tahay geedi socodka ummadda Soomaaliyeed runtii waa nasiib daro in lagu kulmi waayay magaalada Muqdisho ama ay culays oo ka yimid siyaasadeed in kulamo noocan oo kale lagu qabto dalka gudihiisa hase ahaatee haddii xitaa lagu qabtay dalka dibadiisa ceeb ma laha oo dowladda shisheeye iyo ajaanib iyo cid kale arrinta shaqo ku leh ma laha Professor Gandhi oo dhinaciga fadhiya iyo aqoon-yahano kale oo iyo xildhibaano kale oo Soomaaliyeed ayaa arrimahan ka soo shaqeeyay ujeedaduna wax kale ma ahayn in talooyin iyo afkaar iyo wada hadal arrinta laga sameeyo marka insha Allah waxaan rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u arkaan wanaag iyo dad u soo istaagay u qiirooday xaaladooda guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaan magaalada Muqdisho in maaragtay talo iyo afkaar laga dhiibto axsaabta ka soo qayb galay kulanka maanta waxaa ka mid ah xisbiga daldhis xisbiga wadajir xisbiga nabadda xisbiga elays xisbiga mid qaran xisbiga isbahaysiga iyo siyaasiyiin waxgarad oo iyagana ka mid ah axsaabtaas qaar la mid ah bayaanku wuxuu ka bilaabanayaa sidatan maanta oo ay taariikhdu tahay 22 Abriil 2019 waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed xildhibaano siyaasiyiin kale waxgarad aqoon-yahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii ay xukuumaddu diiday ama ay culays saartay in kulamo noocan ah oo madax bannaan lagu qabto caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo dhibsatay cadaaweysatay in xogaga siyaasadeed ama siyaasiyiinta talooyinka dalka ka wada ama axsaabta rasmiga ah jira inay isu yimaadaan dalka ay arrimaha Soomaalida ay ka wada hadlaan culayskaas ayaa keenay in dadka qaarkii markay halkan isku arkeen ay yiraahdeen aan ka faa'iideysano fursadan maanta aan isu helnay inaan shirkan qabanno sababta ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahayd walaac laga qabo halista soo food saartay geedi socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilaabmay carta magaalada carta ee dalka Djibouti sanadkii 2000 ka soo qaybgalayaashu waxay ka doodeen xaaladda dalka ee faraha ka sii baxaysa oo ay ugu weyn yihiin qodobada soo socda amniga ka soo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in xukuumaddu ku fashilantay sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan nabadgelyada caasimadda magaalada Muqdisho waxay kaloo xukuumaddu ka mira dhalin weysay hirgelinta heshiisyadii amni ee ay wada galeen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyadoo muddo sanad ah kulan aysan yeelanin golihii amniga qaranka waxay xukuumaddu mudnaanta ka leexisay la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyadoo xoogga isugu keentay caburinta cadaadinta iyo baacsiga muwaadiniinta ka aragtida duwan iyo siyaasiyiinta talooyinka iyo afkaarta bixinaya halkii ay kasban lahayd shacabka ayay taa bedelkeedii si ula kac ah xukuumaddu qaaday talaabooyin kala fogeynaya xukuumadda iyo shacabka sida xirista wadooyinka xanibka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka bulshada raafka joogtada ah oo ay dhalinyaradu kula kacdo iyo caburinta xoogsatada iyo danyarta Soomaaliyeed tani waxay fursad siisay in kooxaha argagixisada ahi
xoogeystaan fursadna u helaan inay caasimadda iyo deegaanada kale ee dalka isku ballaariyaan. labo, tala wadaag arrimaha federaalka iyo dastuurka iyo doorashooyinka. waxay ka soo qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen isku milanka hay-adaha qaranka sida fulinta, sharci dejinta iyo hay-adda garsoorka ay galeen kulligooda gacanta dad tiro yar oo hoggaanka dalka haysta oo si joogto ah ugu tagrifala. waxay kaloo walaac ka muujiyeen xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo waddada mugdiga ah ee lagu wado howlaha dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka dalka. talo la-aanta siyaasadeed, daciifinta hay-adaha dastuuriga ah, daahfurnaan la-aanta geedi socodka howlaha dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka waxay walwal geliyeen shacabka iyo saamileyda siyaasadeed ee dalka, iyadoo markii ugu horreysay ee halis gashay geedi socodkii dhismaha dowladda iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilowday magaalada Carta sanadkii 2000. jahwareerka siyaasadda iyo arrimaha dibadda. ka soo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen inaysan xukuumaddu lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo fadhida, iyadoo fudayd iyo ka fiirsi la-aan siyaasadeed ku maaraysa siyaasadda dalka, halisna gelin karta jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. waxay kaloo ka qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen heshiisyada mugdi lagu galaayo ee taabanaya maslaxadda qaranka iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed. wada hadalka Somaliland iyo maqaamka caasimadda Muqdisho. ka soo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen in muddo 2 sano ah iyo in ka badan ay xukuumaddu aysan bilaabin wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland, taasoo beddelkeedana ay dhiilo iyo xasaasiyad kicin kula dhaqanto walaalaheena reer Somaliland. waxay kaloo walaac ka muujiyeen cadaadiska joogtada ah ee xukuumaddu ku hayso shacabka Muqdisho, iyadoo hor istaagtay dadaal kasta oo lagu badbaadin karo, lagu baadigoobayo in la helo maqaam ay leedahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. xuquuqda muwaadinka. waxay ka soo qaybgalayaashu ka walwalsan yihiin caburinta iyo cadaadinta joogtada ah ee lagu hayo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. hoggaanka dowladdu waxay iska indhatireen dhibaatooyinka shacabka Muqdisho oo u baahan hiilo dowladeed iyo dareen in dowladdoodu ay u turayso. haddaba waxay cabsi ka muujiyeen in cadaadiska iyo culayska shacabka oo sii socda uu keeni karo kacdoon foodo horseeda, dalkuna mar kale uma baahna mana xamili karo kacdoon shacbi. gunaanad. waxay ka soo qaybgalayaasha u muuqataa in 2 sano ee lasoo dhaafay iyo wixii ka horreeyey in wixii hore ay u dhisnaa waxba laga qabanin, balse wax loo dhimay. mana muuqato saansaan muujinaya isbeddel dhinaca aragtida iyo ficilka ah oo lagu saxo khaladaadkii 2 sano ee lasoo dhaafay lasoo maray. sidaa daraaddeed waxay ka soo qaybgalayaashu ku baaqayaan 1 in hoggaanka dalku uu la yimaado talo dalka iyo dadka lagu badbaadiyo, lana helo xukuumad kasban karta kalsoonida shacabka iyo xoogagga siyaasadeed ee dalka ka jira, si loo dhammaystiro howlaha masiiriga ah ee horyaalla qaranka, sida xasilinta dalka, dib u eegista dastuurka, qabashada doorashooyin qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacda, iyadoo aan la aqbali karin wax la yiraahdo muddo kororsi. 2 haddii ay madaxda dalku iska dhegatiraan baaqyada iyo tala soo jeedinta dadka saamileyda siyaasadeed iyo talada dalka wax ku leh, haddii aan laga dhegaysan talooyinkooda,
waxaan soo jeedinaynaa in dalka gudihiisa laisugu yimaado shir qaran bisha juun ee sanadkan 2019 ah oo dalka gudihiisa lagu qabto si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ee dalka iyo talooyinkii la soo jeediyey oo ay xukuumaddu tixgelin weysay waxaan ku baaqaynaa in xukuumaddu ay soo dhaweyso in shirarku ay ka dhici karaan magaalada muqdisho iyo dalka intiisa kaleba siyaasiyiintana ay xaq u leeyihiin dastuurkan uu qorayo in dalka lagu kulmi karo talooyin afkaarna la isku weydaarsan karo 3 beesha caalamka oo baryahan u muuqata inaysan daacad ka ahayn siyaasadda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay mudnaanta koowaad siiyaan howlaha lafdhabarka u ah nabadeynta iyo dhismaha dawladnimada Soomaaliya kana waantoobaan inay siyaasadda Soomaaliya soo faragashtaan oo ay arrimaha dalka ay ku yeeshaan raad aanan wanaagsanayn hada wabillahi tawfiiq